Bilowga hore ee filimkeena waxaan aragnaa wiil yar oo lagu magacaabo Krog iyo qoyskiisa. Krog iyo qoyskiisu ma ahan dad caadi ah, waxayna awoodaan inay isku beddelaan xayawaan iyo bini'aadamaba. Waqtigooda ugu badanna waxay ku qaataan iyagoo ah xayawaanka loo yaqaan puma. Haddii aad taqaan xayawaankan waxa af Soomaali ahaan loo yaqaan filim comedy nula wadaag. Krog wuxuu aad u jecel yahay inuu wax ka ogaado bini'aadamka iyo sidii u nool yihiin, balse qoyskiisa arrinkaasi aad ayay uga soo horjeedaan. Waxayna mar walba uga digaan inuu u dhowaado bini'aadamka, waxaana jira hal shardi kaasoo dhigaya inuusan Krog u dhowaanin bini'aadamka. Waxayna qoysku ka aaminsan yihiin bini'aadamka inay khatar ku yihiin jiritaankooda. Krog hadafkiisu waa inuu ka war doonaa bini'aadamka. Ugu dambeynna maalin maalmaha ka mid ah wuxuu jabiyaa sharcigii, wuxuuna kusoo tegayaa buurihii ay ku noolaayeen qoyskiisa isagoona magaalka soo galayo. Markii ugu horreysana wuxuu la kulmaa lamaane. Lamaanuhuna waxay u malaynayaan inuu yahay wiil yar oo Solomon waa ayna wataan si ay u korsadaan. Krog hadda wuxuu si toos ah uga mid noqday bini'aadamka, sidoo kalena wuxuu helay qoys cusub iyo walaalo. Waqti aad u dheer kadib waxaan aragnaa subax subaxyada ka mid ah xilliga quraacda. Krog waxa uu TV ka arkayaa in xayawaano aanan la aqoon ay magaalada qas ka wadaan ayagoona sababa shilal badan. Krog wuxuu dareemaa arrinkaasi inuusan ku cusbeen. Isla maalintaasina Krog waxaa loo soo kaxeeyaa iskoolkiisa cusub maadaama dhammaan iskooladii hore ay soo fahmi waayeen. Krog waxa uu soo macsalameeyaa aabihiis waxaana hore u soo wadayda hooyadiisa cusub taasoo lagu magacaabo Anna iyo gabadheeda Melody. Intii ay waddada ku jireen waxa uu arkaa Krog inuu gaarigooda daba socdo tuke kaasoo meel kasta ay aadaan kasoo daba aadayo. Waxaana la gaaraa habeen, ayagana waxay go'aansadaan inay hudeel tagaan si ay halkaas ugu nastaan. Marka saqtii dhexe la gaaro, Krog oo hurdo waxaa hurdada kasoo kiciyo cod la yaab leh. Markii uu daaqada ka fiiriyana wuxuu arkaa yeey badan oo isdaba yaacayso iyo leerka dhismayaasha oo damaya marna daarmayo. Krog waxa uu dareemaa wax walba inaysan caadi ahayn. Subaxii xigayna qoysku waxa ay sii wataan safarkooda. Safar saacado dheer qaata kadib ugu dambeyn waxay soo gaarayaan iskuulka kaasoo lagu magacaabo Clearwater High School. Balse arrinka aad uga yaabiyey Krog ayaa waxa uu yahay inuu arko labadii tuke ee daba socda oo markaan ah arday ayagoona iskoolka soo gelayo. Krog waxa uu dareemaa inuu shakigiisii sax ahaa, isla markiina waxa uu la kulmaa maamulada iskuulka taasoo lagu magacaabo Lisa. Lisa waa ay soo dhaweysaa. Markay wada fadhiistaan, Lisa waxa ay weydiinaysaa qoyska sida ay ku soo heleen. Anna waxay u sheegtaa inaysan jirin cid taqaano qoyskiisa dhabta ah, ayagana markay heleen inuu ninkeeda ku qanciyay inay korsadaan. Waxayna u sheegtaa in dhammaan iskooladii la geeyay ee ardadii isku fahmi waayeen. Ugu dambeynna waxaa loo soo tilmaamay iskuulkan, waxayna rajeynaysaa inuu asxaab badan ku yeesho uuna fahmo. Lisa waxa ay codsataa inay keligiis la hadasho. Markii labadooda bis ay noqdaan waxay u sheegaysaa xaqiiqda, taasoo ah in iskuulkan arday joogto oo dhan ay leeyihiin awood, taasoo ah in mid walbaba xayawaan gaar ah uu yahay. Iyadana waxay u sheegaysaa inuu kusoo dhawaado caalamkan la yaabka ah uuna la qabsado. Xoogaa kadibna waxaa dhacaya gambalaalka. Lisana waa ay soo baxaysaa. Lisa waxay aragtaa Anna iyo Melody oo yimaadeen meel ka mamnuuc ah inuu qof caadi ah soo galo. Gacanyaraheeda ayayna ku amartaa inay ka soo celiso, balse wuxuu la yaabaa Krog in markii ugu horreysay uu arkayo xayawaano kala duwan kuwaasoo hal meel iskugu keenay. Krog isagoo iska dhex lugeynaya iskuulka wuxuu si kama ah ugu dhacay Jeffrey oo ah wiilka ugu kibirka badan iskuulka. Jeffrey iyo tiimkiisa waxay bilaabaan inay daandaansadaan. Krogna isagoo awoodiisa la soo bixiro waxaa meesha soo gaaraya James isagoona kala dirayo. Intaas kadib Krog wuxuu macsalameeyaa qoyskiisa. Xoogaa kadibna waxaa meesha soo gaaraya Andrew kaasoo ah ganacsade awood leh iyo sidoo kale aasaasaha iskoolkan oo dhan. Krog wuxuu xoogaa kadib la kulmaa Andrew isagoona la sheekeysanayo. Krog wuxuu Andrew u sheegaa in haddii uusan qoyskiisa kasoo tegi lahayn uusan saacan ogaa lahayn qofka uu isaga yahay. Intaas kadib Krog waxaa la keenaa qolkiisa cusub. Lisana waxay u sheegtaa inuu ixtiraamo ama uu raaco sharciyada iskuulka. Xoogaa kadib wuxuu daaqada ka arkaa dabakaale. Markuu daaqada ka furana waaba gabar lagu magacaabo Holly. Maalintii xigtayna macalinka wuxuu ardayda siinayaa digniin, taasoo ah inay keliya awoodooda adeegsan karaan xilliga casharada lagu guda jiro, sidoo kalena aysan ogolaan in ayagoo isbedelaya uu qof bini'aadam ah arko. Krog wuxuu go'aansadaa inuu awoodiisa soo bandhigo. Ka hor intuusan isbedelinna wiil lagu magacaabo Brandon ayaa isbedelayo, isagoona isku bedelayo dibi aad u weyn. Brandon ma awoodo inuu waqti dheer sii ahaado bini'aadam. Sidoo kale Krog wuxuu dareemaa inuusan awoodiisa la soo bixi karin, waxaana ku adkaanaysa inuu isku bedelo xayawaan. Balse waxaa caawinaysa Lisa ayadoona bilaabaysa inay xasuus geliso xilliyadii uu xayawaanka ahaa, waxaana dib u soo kacaysa shakhsiyadiisii Puma ahayd. Ugu dambeynna Krog wuxuu noqonayaa xayawaan. Lisana waxay amartaa in dhammaan ardaydu ay la soo baxaan awoodooda, qof walbana wuxuu la soo baxayaa awoodiisa. Inta badanna ardaydu waxay ahaayeen yeey. Iskoolkana waa mid ardayda lagu baro si ay awoodooda u dheelitiri lahaayeen ayagoo aanan si xun u adeegsan. Subaxii xigayna markuu soo kaco, Krog waxaa u imaanaya Holly iyo Brandon oo isku qol yihiin. Waxayna Holly u sheegaysaa in la joogo waqtigii quraacda. Iyadoo la joogo kafeteriyada cuntada, Krog wuxuu la kulmaa wiil lagu magacaabo Dorian kaasoo ah bisad. wuxuuna Dorian Krog uga sheekeynayaa qisadiisa. Krog wuxuu xilligaas la qadeynayaa asxaab kala duwan, waxa ayna bilaabaan inay ixtiraamaan qaarkoodna ka cabsadaan awoodiisa maadaama uu yahay boqorka buuraha. Dhinaca kale wiil yar oo faras ah ayaa wuxuu ka cabsanayaa Jeffrey iyo tiimkiisa ka hor inta
aysan waxyeeleen waxa ka soo gaaray Krog. Jeffrey oo ahaa Wolf amiyay wuxuu bilaabay inuu ka cabsiyo Krog hor labadooda intaysan gacan iskula tagin waxa ka soo gaaray James isagoona kala qabanayo. Habeenkii waxaan aragnaa Krog oo iskaga jiriyo qurux badan taasoo ah isagoo la joogo qoyskiisa waxaa ka qasay Brandon isagoona isku bedelay dib sidoo kalena burburinay sariirtiisa. Brandon oo qoslayna wuxuu u sheegay Krog in ay tan dhacdo isbuucii loo mar oo kaliya. Subaxii xigeenna ayadoo lagu guda jiro xiisada dagaalka Brandon waxaa dagaal ugu waco Porter oo ah wiil biir ah balse uu ka cagajiidaa macalinkana Krog ayuu u doortaa inuu la dagaalamo Porter balse Krog waxaa ku adkaanaysa inuu isku bedelo bahal waxaana u imaanaya Andrew isagoona bilaabay inuu mara yar sanka ka saaro taasoona ka caawinaysa inuu isku bedelo Puma. Krog aad ayaa looga xoog weyn yahay balse asaga aad ayuu u dagaalamaa ugu dambeynna waa uu guuleystaa. Dagaalka xigana wuxuu dhex marayaa Dorian oo ah bisad iyo xayawaankan balse xayawaankii yara kaliya waa uu aryoonaya taasoona ka dhigaysa in laga adkaado Dorian. Dhamaadka xiisada Andrew wuxuu u sheegay Krog inuu ku qancay habdagaalkiisa wuxuuna u soo bandhigaa inuu u noqdo tababarihiisa maadaama Andrew uu yahay Puma balse arrinkaas waxaa meel dheer kala socday Jeffrey kaasoona aad uga masirsan inuu booskiisa kala wareegay Krog. Jeffrey wuxuu Krog u soo bandhigayaa challenge kaasoo ah inuu la dagaalamo haddii uu ku guuleystana uu ka fogaan doono. Subaxii xigeenna Krog wuxuu arrinkaas kala hadlay saaxiibadiisa isagoona dhammaan arrinka oga dhacayo balse Brandon oo cabsi ka muuqata ayaa wuxuu saaxiibkiisa ugu digaa inuu arrinkaas u keeni karto in laga buriyo iskoolka balse Krog wuxuu u sheegayaa inuusan intaan ka badan u dul qaadan karin aflag ooga imaanaysa Jeffrey. Hoolina arrinkaas waa ay ku taageertaa. Marka la gaaro xilliga dagaalka Krog waxa uu ka war helaa inuusan Jeffrey kaligiisa ahayn balse uu soo kaxaystay dhammaan asxaabtiisa. Krog wuxuu go'aansadaa inuusan cararin mid ayuuna oo la dagaalamaa balse waa laga awood badan yahay. Hoolina waxay ku qasabtaa Brandon inuu la galo dagaalka saaxiibkiisa. Brandonna markuu soo galo dagaalka waxay cabsi gelinaysaa iyada kale. Dagaal dheer kadibna ugu dambeyn Jeffrey iyo tiimkiisa waa lagu guuleysanaya. Subaxii xigeenna James waxa uu arkaa dhaawacyo ka muuqda ardayda wuxuuna dareemayaa inuu dagaal dhex maray. Ugu dambeyn dhammaantood wuxuu u soo diraa xafiiska Lisa balse markaas waxaa dhaca arrin la yaab leh. Waxaa meesha imaanaya Andrew isagoona soo kaxeynaya Krog. Waxa uu soo saarayaa gaarigiisa wuxuuna u sheegayaa in Pumaha saxda ah uusan marnaba caawinaad dirsan xitaa haddii ay ku goobtaan 4 yey ah. Krogna wuxuu ogaadaa inuu Andrew wax walbaaba la socday. Krog wuxuu qoyskiisa ka soo tagay asagoo yar oo aanan weli baran sida loo ugaarsado taas beddelkeedna Andrew isaga ayaa bari doona. Markii dib ugu soo noqdaan iskuulka Lisa oo xanaaqsan waxay u sheegtaa Krog haddii uu doonayo inuu iskoolkan sii joogo waa inuu raacaa ama uu ixtiraamaa sharciyada iskoolka waxayna Andrew ka mamnuucaysaa inuu mar kale safar gaar ah u wado Krog. Dhinaca kale Krog iyo saaxiibadiisa oo wada jooga waxay arkayaan Luwa oo u soo socota dhinaca keenta waa ayna soo daba raacaan balse waxay arkaan macallimiinta oo shiray iyagoona ka wada hadlaya weerarada maalmahan socdo iyagoona soo jeedinaya inay ka hortagaan ka hor inta uusan dhicin iska horyimaad u dhexeeya bini'aadamka iyo ayaga taasoona khasaare baahsan keeni karta. Intaas kadib Krog wuxuu asxaabtiisa u sheegaa intuu safarka ku jiray inuu arkay geeyi weeraraya dadka wuxuuna hubaa inay kuwaasi ahaayeen Jeffrey iyo tiimkiisa. Maalinkii xigana Andrew ballantii ayuu fulinayaa isagoona Krog u soo kaxeynaya dhinaca iyo keenta si uu u tababaro. Wuxuu bilaabaa inuu baro sida loo ugaarsado isagoona u sharaxaya wadada loo maro ugaarsiga. Dadaal dheer kadib ugu dambeyn Krog wuxuu ku guuleystaa inuu soo qabto deero labadoodana deeradii uu Krog soo ugaaray ayay wada cunaan. Intii ay dib u soo laabanayeen Andrew iyo Krog Andrew wuxuu u sheegaa inay jirtay gabar uu isaga dhalay taasoo geeriyootay xilligan haddii ay noolaa lahaydna ay ahaa lahayd da'da Krog oo kale. Dhinaca kale ayadoo lagu jiro xilliga nasashada Luwa waxay ogaataa inuusan Krog waxba cunaynin wuxuuna u sheegaa inuu subaxii hore soo ugaarsaday. Markii tan maqshilo way aamustaa waa ayna soo tagtaa ayadoona xasuusanaysa maalintii Puma uu soo weeraray hooyadeeda isagoona si xun u dhaawacay. Krog isagoo dembi dareemaya ayuu wuxuu soo dabaraacaa Luwa balse dhinaca keenta ay soo aadaa waa ayna qarsoontaa. Habeenkii xigay Krog wuxuu maqlaa qaylada yeyda markuu daaqada soo fiiriyana wuxuu arkaa Jeffrey isagoona ka shaki qaba ayuu soo raacaa ilaa uu arkay magaalada ugu dhow halkaas oo Jeffrey iyo tiimkiisa ay ku cabsi gelinayaan nin waardiye ah balse Krog ayaa soo baxay si uu u difaaco ninka. Waxay ku sigtaan laba dhinac inuu dagaal dhex maro balse waxaa ka soo gaaraya Andrew isagoona dhammaan yeyadii gaariga ku shubayo wuxuuna dib ugu soo celinayaa iskuulka. Intaas kadib Andrew iyo Krog labadooda oo kaliya iyagoo ah Andrew wuxuu u sheegaa runta taasoo ah inuu yahay qofka ka dambeeya weerarada maalmaha magaalada ku socdo. Arrinkaasina waxay qalbi jab ku keentaa Krog wuxuuna dareemaa inuu khiyaamay Andrewna wuxuu bilaabaa inuu sida dhabta ah ooga dhaco taasoona kasoo bilaabanaysa naceebka uu u qaaday bini'aadanka in maalmaha ka mid ah xaaskiisa iyo gabadhiisa yar uu ugaarsi ku dilay nin bini'aadan ah keenta dhexdeeda. Tan iyo maalintaasna Andrew wuxuu la noolaa xanuun iyo caro isagoona ku fikiraya inuu ka argoosto dhammaan bini'aadanka wuxuuna Andrew Krog u sheegayaa inay bini'aadanka yihiin noolayaal xunxun kuwaas oo ka dambeeyay dabargo'a xayawaano badan. Intii
intii labadooda cashada ku jireen haweeney ayaa imaanaysa si cunto u keento. Krogna wuxuu ogaanayaa haweeneydaasi inay ugu jirto lug macmal ah, balse Andrew ayaa wuxuu u sharaxayaa inay tahay mas. Lugtana waxaa ka dardaray gaari ay wateen bini'aadamka iyada oo xilligaasi mas ahayd. Andrewna wuxuu u soo jeediyaa Krog inuu kusoo biiro tiimkooda, balse Krog ayaa wuxuu u sheegayaa inuusan doonaynin inuu qofna waxyeeleeyo. Andrewna wuxuu ku jawaabaa inuusan rabin inuu dadka waxyeeleeyo, balse kaliya uu burburinayo mishiinadooda iyo mashaariicda ay ku doonayaan inay ku dhibaateeyaan xayawaanada. Krogna wuxuu u sheegaa inuu arrinkaasi kasoo fikiri doono, waxa uuna ogolaadaa arrinkaasi inay sir ahaato uuna qofna u sheegin. Subaxii Krog iyo Brandon waxay soo aadaan keenta si uu Krog Brandon u siiyo tababar, balse inta tababarka lagu jiro si lama filaan ah Brandon gaari ayaa ku dhacayo. Waxaana ogaanaynaa gaarigaasi inay saarnaayeen waalidka Krog soo korsaday oo u yimi xilligaasi inay isaga soo booqdaan. Krog oo argagaxsan wuxuu labadooda u soo kaxeeyaa qaybta martiqaadka si ay u qariyaan wixii dhacay. Intii lagu guda jiray kulanka, Anna waxay aragtaa qoole yar taasoo barbaaraysa alaabta Krog, balse Lisa ayaa soo gashay iyadoona xanaaqsan inaysan sidaan ahayn sharciga loo maro booqashada. Annana intaysan bixin ka hor Krog waxay u sheegtaa inay dalxiis ahaan isbuucan u joogi doonaan magaalo u dhow, waxayna u sheegaysaa inuu kusoo biiro. Krogna isagoo faraxsan ayuu ogolaanayaa inuu dalxiis kusoo biiro. Xoogaa kadibna Andrew ayaa soo wacay Krog isagoona u sheegayo inuu kusoo biiro dhacdo gaar ah taasoona isla isbuucan dhammaadkiisa dhici rabto, balse Krog waa uu ka diidaa, wuxuuna si cad ugu sheegaa inuusan taageerin waxyeelada dadka. Andrewna wuxuu taleefon ka jaraa isagoona wax hadal ah afkiisa kasoo bixin. Krog wuxuu soo aadaa keenta si uu maskaxda usoo dejisto, wuxuuna isku bedelayaa xayawaan si uu halkaasi ugu sii tababarto, balse wuxuu ka war helayaa daroono korkiisa socdo. Waxaana ogaanaynaa daroonadaasi inay leeyihiin mid ka mid a ugaarsayaasha, sidoo kalena wuxuu watay eeyo aad u tiro badan. Krog waa uu kasoo ordaa wuxuuna ku dhuntaa geedaha dhexdooda, balse waxaa weli daba socda daroonta, balse Wing oo ah tuka ayaa wuxuu bilaabayaa inuu burburiyo daroontii, wuxuuna Krog u sheegaa inuu meesha ka baxsado. Orod dheer kadib ugu dambeyn Krog waa uu daalaa oo waa uu dhacaa, balse mid ka mid a gabdhaha qooleyda ayaa soo muuqatay iyadoona usoo tuuraysa dhar si uu iskugu bedelo bini'aadan. Krog wuxuu kusoo noqdaa dhanka dugsiga, laakiinse ka hor inta uusan soo gaarin kambaska waa uu suuxaa. Andrew ayaana soo qaado wuxuuna keenaa gurigiisa si uu halkaasi ugu soo nasto. Markuu soo tooso Krogna wuxuu Andrew u sheegaa dhacdooyin ku saabsan ugaarsadaha, sidoo kalena Andrew wuxuu u sheegaa dhacdo xanuun leh taasoo ah in dhammaan qoyskiisa ay ugaarsadayaashu ugaarsadeen. Sidii Andrew qoyskiisa lagu sameeyey ayaa haatan Krog qoyskiisana lagu sameeyey. Krog oo xanuun iyo ciil ka muuqdana wuxuu go'aansadaa inuu kusoo biiro Andrew tiimkiisa, wuxuuna diyaar u yahay markan inuu weerar ku noqdo bini'aadanka. Ka hor inta aysan kelin mishinkooda ugu horeeyana Andrew wuxuu u sheegayaa Krog in la soo raadin doono qoyskiisa, wuxuuna u diray shaqaale si ay u soo raadiyaan qoyska Krog, wuxuuna u sheegayaa haddii ay nool yihiin in la heli doono. Intaas kadib Krog waxaa soo wacaysa Anna iyadoona u sheegaysa inay baajisay safarkoodii isbuuca maadaama ay soo galeen arrimo muhiim ah. Intaas kadib Brandon iyo Haley waxay bilaabayaan inay isku dayaan inay kala hadlaan arrinka Andrew, balse wuxuu bilaabayaa isagoo aan dhageysan warkooda inuu iskaga tago. Ugu dambeynna Andrew tiimkiisa iyo Krog waxay soo aadayaan meel laga waday mashruuc jaridda geedaha ah, waxayna bilaabaan xayawaanada yaryar inay u diraan si ay u qasaan mashruuca ka hor inta aysan weerar qaadin. Balse Krog wuxuu arkayaa dhacdo qalbi xanuun taasoo ah qoyskiisii soo karsadeen inay joogaan isla meeshaan ayagoona waqti qurux badan halkaas ku qaadanayo. Yey ayaa loo dirayaa niman guda jira jaridda geedaha si ay u cabsiiso. Intaas kadib Derek oo ka mid ah tiimka wuxuu bilaabayaa inuu fuulo gaariga si uu u sii daayo qoryaha la raray, balse Krog ayaa wuxuu bilaabayaa inuu baryo maadaama haddii qoryaha dhacaan qoyskiisa oo hoos jooga ay dhiban doonaan. Isla markaasna Brandon iyo Holly ayaa imaanayo si ay u taageeraan Krog. Intaas kadibna waxaa imaanaysa qooleyda iyagoona bilaabayaan inay dhibaan Derek si uu u joojiyo inuu qoryaha sii daayo, balse Derek oo xanaaqsan wuxuu isku bedelayaa biir aad u weyn, balse dhammaan asxaabtu dagaalka ay soo galayaan. Krogna wuxuu isku bedelayaa buuma taasoo sababaysa inuu meesha iskaga carro Derek, balse Andrew ayaa soo muuqanaya isagoona gaariga sii deynayo. Krogna markuu arko arrinkaasi wuxuu bilaabayaa inuu dagaal ku qaado Andrew, labadoodana intay isdagaalayaan qoryaha waa ay sii daadanayaan. Anna markay aragto qoryaha kusoo socdo waxay bilaabaysaa inay u qayliso gabadheeda Melody, balse ayada ma maqlayso oo dhaga ayaa ugu jiray. Qoryaha oo ku dhow inay ku dhacaan Melody waxaa kasoo gaaraya Krog isagoona buuma ah ayuu wuxuu badbaadinayaa walaashiisa. Ugu dambeynna arrinkaasi qoysku ay ugu farxayaan maadaama buumaha uu gabadhooda u badbaadiyey. Intaas kadib Luwa iyo asxaabta waxay arkaan Krog oo suuxsan, waxayna bilaabayaan inay u masaajeeyaan si uu usoo kaco, balse sooma toosayo, waxayna u malaynayaan xilligaasi inuu geeriyooday. balse nasiib wanaag waa uu soo kacayaa Krog isagoo bini'aadan ah ayuuna u imaanayaa qoyskiisa, waxayna bilaabayaan inay laabta isgeliyaan. Ugu dambeynna Andrew helicopter ayuu ugu wacayaa qoyska si isbitaalka loogu qaado. Krog oo xanaaqsan ayaana Andrew bilaabay inuu ku qeeliyo isagoona u sheegayo inuu halis geliyo nafta qoyskiisa. Sidoo kalena Krog wuxuu ogaanayaa qoyskiisa saxda ah inay nool yihiin oo aysan dhiman. Ugu dambeynna meesha waxaa imaanaysa Lisa, balse dhammaantood waxay maqlayaan codka booliska, meeshana waa iskaga soo tagayaan.
tagayaa. Dhammaadka filimka, markay asxaabta iskoolka kusoo laabtaan, Krog waxaa loo aqoonsanayaa halyeeyga iskoolka. Dhammaan ardayduna waxay bilaabayaan inay ixtiraamaan sidoo kalena ka baqaan. Filimkan oo lagu magacaabo Woodwalkersna halkaas ayuu ku egyahay. Iloobin inaad muuqaalka like saarto, channelkana subscribe dhahto. Iga sugu muuqaalo kuwan ka xiiso badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.